السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waniyahow guushii aynu u dabaaldegnay niman baa liin dhanaan nooga dhijiyey caanaha markii liinta lagu dhijiyo waa arta way halaabaanay nimankii baa niyow shoog bayna geliyeen 12 mayl waxaan rabaa inaan aragtidayda sida ila tahay baan rabaa inaan bal ku laabano meeshan waxa yaala sawirkii lasoo bandhigay ayaan bal isku dayaynaa inaan wax ka fahano labadii decision kii Soomaaliya rabtay iyo kii Kenya rabtay iyo waxa ay noqon karaan ayaan rabaa horta inaan ku laabano ka bacdina waxaan isku dayi doonaa inaynu bal fiirino wax meeshan ka soo baxaya aragtideeda yar markii aan ku celceliyay line-kan arkaysaan waa line-kii hore loo yaqaanay straight line-ku waa line toosan markii loo fiiriyo meesha ay ku dhamaanayso waxa loo yaqaan xuduudda badda Soomaaliya meesha ay ku dhamaanayso sida line-ku uu eg yahay in loo raaco oo laga qabto meesha ugu dambaysa sida hadda sawirkan uu yahay oo kaleeto sidaas ayaa waxa la yiraahdaa straight line ama line toosan ayaa la yiraahdaa Soomaaliya doodii ay ku doodaysay wuxuu ahaa in line-kani straight line sida loo dhigo ilaa ay xagee loo dhigayaa waxa loo dhigayaa ilaa ay laga gaarayo 200 oo kilomitir oo runtii continental shelf la yiraahdo ama qalfoof badeed Soomaaliga waliba Soomaaliya aan baad ka hor waliga maqal ilaa iyo line-kan cas ama guduudan oo loogu talagalay in dal walba markii halkan laga tiriyo xuduudda ilaa iyo halka ayaa 200 noqonaya dal walbana 200 buu leeyahay space 200 oo kilomitir space soo marka line-kan in la toosiyo ilaa iyo 200 laga gaarayo bay ahayd dacwadii Soomaaliya hadii marka aynu saa u dhignaba line-kan meeshan iga qariba inta aan hawshan kaga jiro hadii marka saas loo dhigo oo ilaa iyo halka line-ka la wado Soomaaliya hadii dacwadda sida loo raaco line-ka sidaa buu noqonayaa sidaa bay line-ka gudan xuduudda badda sidaa bay noqonaysaa okay sidaa bay noqonaysaa marka let me see okay maya sidaa ma noqonaysa sidaanay noqonaysaa cafwan raalli ahaada straight line-ka markii loo raaco si qaldan baan u dhigay yar raalli ahaada halkaas pointigaasi sidaa buu noqonayaa markii line-ka straight line loo dhigo cafwan sidaa buu noqonayaa waa sida ay Soomaaliya ku doodaysay oo dacwadeedu u ahaa waa in line-kani halka markuu marayo in straight line loo dhigo sida halkaasaan marka kaga dhacaynaa ama kaga kulmaynaa waxa loo yaqaano 200 mayl halkaas soo dal kale ayaa jira marka oo halkaasina xuduud ku leh oo Tanzania la yiraahdo oo asaguna straight line loo sameeyay xuduudiisu soo asagaasna hadii marka la fiiriyo oo sidaasna loo raaco waxaad ka arkaysaa line-kan marka intii aan 200 oo mayl 200 oo kilomitir intii aan la gaarin ayaa halka ka kulmayaan labadaasi dawlad halka hawshu markay maraysa marka waxay noqonaysaa marka in dal walba oo doonaya hadda Kenya waa halkaane in Kenya maxaa la yiraahdaa uu geeyo alaab inuu geeyo hadii hadda ma taqaanaa la damco waxa qasab noqonaysa marka in ama Tanzania fasax laga qaato ama Soomaaliya fasax laga qaato markaysan waa labada qaab soo maxaa la yiraahdaa Kenya marka loo geyn karayo waxa loo yaqaano alaab tusaale oo kale hadii hadda halkan uu markab ka soo baxo tusaale oo kale marka waa markab hadii hadda halkan uu markab ka yimaado oo kaleeto uu damco markabkaani inuu alaab geeyo Kenya maadaama labada laan ay kulmayso waxa qasab noqonaysa in ama Tanzania ay si canshuurto ama inuu xagga ka imaado oo ay si canshuurto Soomaaliya soo marka dalkani wuxuu noqonayaa marka dal landlocked ama dal xiran buu noqonayaa maadaama labada border geesaha ka jira ay kulmeen ka hor inta 200 aan la gaarin arrintan weeye sida aan isleeyahay aragtidayda yarta ee gaaban kulli waxa sharxi doona sharci yaqaaninta Soomaalida iyo arrimaha ay dhan way sharxi doonaan sababta 16ka mayl loo siiyay soo marka 16ka mayl line-ka adjusted-ka oo loo raacay nimankani waa line-kan sida hadii loo raaco marka waxa furmaya marka space yar baa halka ka furmaya oo markaasi ay maraakiibta caalamku haday doonayso inay Kenya alaab geeyaan space kaas ay mari karayaan halkaas ay mari karayaan alaabta halkaas la geyn karayaan markaysa soo marka umay baahna marka inay canshuur mataqaanaa Soomaaliya iyo Tanzania inay midna maran uma baahnaa halkaas ay marayaan soo marka
ideology aragtida marka dhabta ah ee markii la fiirinayo nimankan ay fiirinayeen xagee blocks ku jira xagee blocks ku jirinin inta badan lama fiirinayo waxay fiirinayaan dowladahan down ay fiirinayaan nimankan waa sidaan islaahay weeye aragtida anoo waliba og inaysan gaalo cadaalad aqoonin ayaan haddana islaahay aragtiyan waxaasay saasay u sameynayaan waxaasay ku base garaynayaan nimankan xataa hadday ku dhacayaan waxay qaabka ay ku dhacayaan waxbay ku sababeynayaan soo marka taa waa sababta sidaa loo sameeyey waxaan rabaa oo kale inaan sawir kale oo blockskii laisku haystay oo saamaynta weyn lahaa weliba saddexdii blogga dhinaca isku hayay inaan ayadana aan bal wax oga laabano ka fiiriyo si ayadaasna bal aynu wax oga fiirino dhanka kaleeto markii aad fiiriso waxa loo yaqaano spacekan hadda dhow baa la durjiyey waxaa kaloo jira oo dadka aan raba inaan u sheego dadka inta badan waxay leeyihiin bad Soomaaliya ay leedahay oo 16 mayl la siiyay Kenya in la siiyaa waa qalad horta waxaan rabaa inaan idiin sheego maanta ka hor ma jirinin heshiis caalami ah oo anaga inoo xadeynaya oo qaramada midoobay ICJ ay gacanta ku hayso oo xadeynaya in badeenu ay sidaan ahayd haddii heshiis noocaaya uu jiri lahaa maxaa laga hadli lahaa maysan jirin dowladii hore ee kacaanka Soomaaliya xuduud beenaadda Kenya ma aqoonsanayn hadday bad tahay iyo hadday biri tahay maanta wax ka horeeyay wax loo aqoonsanaa oo caalamka inoo yaalo oo xuduudaha oo bad ahaa ma jirinin marka wax horey u jiray oo badaha ma jirinin dhulkan laga haystay ee hadda meesha Mandera xuduudda u marayso dowladda kacaanka Soomaaliya way diiday waxay tiri waa xuduud beenaad waa diideen Soomaaliya in qaramada midoobay markii mataqaanaa la ansixinayay waxa loo yaqaano boodaradii ay gumaystuhu sameeyeen Soomaaliya way diida ilaa haddana ma jirto Kenya way ogashay laakiin Soomaaliya ma ogola soo marka aragtidayda sida ilaa waxaan u maleynayaa maanta wixii ka dambeeyay waxa Kenya dhab u noqday gobolkii NFD Kenya ayuu maanta si official ugu biiray waayo annaga waxaan ka codsanay in arintan loo xadeeyo nimankan marka haddii ay xadeeyeen badii birigiina wuu raacsan yahay waayo in halka uu borderka nagii uu ku jooga ayaynu sheeganaa soo marka maanta wixii ka dambeeyay Soomaaliya waxa ka dhimanaya doodii NFD way ka baxda meesha oo NFD maanta si official ay waxay ugu biirtay wax loo yaqaano Kenya laakiin ma jirinin wax hore oo heshiis ahayo meesha ku jiray waa aragtidayda taa waa halkaasi because of markii hore Soomaaliya way diiday laakiin hadda inay ogolaato oo ay ICJ u dhiibtay ka bacdi qaramada midooyo naloo diiwaan geliyo waxay meesha ka saaraysaa waxa loo yaqaano ay meesha ka saaraysaa NFD doodeeda meesha way naga saaraysaa waxaan fiirinaynaa marka bal inta dowladda Soomaaliya aysan hadlin ayaan ka rabaa dadka la sii wareerinayo saaxiibaday bal inaan wixii aan ku dhaamo bal aan tuso wixii aan arkayo waxa kale oo idin tusayaa sawir aniga ma garanayo which block ayaa waxyaalo badan ku jiraan aan which block aan waxyaalo badan ku jirin aniga ma garanayo laakiin waxa la sheegayo iyo debate-ka suuqa yaala unbaa aniga idin sheegaya halka haddii aad fiirisaan blocks-yada la isku haysto oo runtii saameynta leh ma dhanka Kenya raaceen mise dhanka Soomaaliya raaceen waa hadalhaynta ugu badan ee Soomaalida maanta ay isweydiinayaan waxaan rabaa marka bal intii aan ka arkay intii aan ka fahmay wixii iiga baxay baan rabaa inaan idin sheego si aad ila aragtaan marka laymankan okay kani waa marka waa line haddii marka sidii hadda la sheegay oo kale aynu u saarno qaab rafli oo kale ah arkaysaan marka qaabkii loo dhigay Soomaaliya awal waxay rabeen sidaas oo kale ayay rabeen laakiin sidoo kale loo yar dhiga wax yar maybe saas oo kale loo dhiga markaysaan block sida ugu badan oo saameynta leh oo dadka inta badan ay sheegayaan I don't know which block ayaa wax badan ku jira ma garanayo laakiin blockyada la isku haysto waa blocks L21 iyo L23 iyo midkan iyo 29 iyo L29 gabi ahaantood markaad fiiriso marka blockskan wali waxay ku jiraan gudaha Soomaaliya sida hadii loo raaci lahaa waxa jira kuwo mar walba qaybsami lahaa iyo waxa jira kuwo si walba loo dhigo hadda markaad fiiriso L30 si walba loo dhigo line-kaani hadii saa loo dhigo xataa hadii saa loo dhigo xataa wali L30 xataa hadii dhinaca Kenya loo leexiyo wali L30 meel buu kaga jiraa marka blocks L30 iyo L5 dhan walba oo line-kan loo dhigi lahaa gudaha
waxay noqon lahaayeen blocks qaybsamay noqon lahaayeen laakiin dadka inta ugu badan waxyaalaha ay sheegayaan waxaa ka mid ah L29 iyo L21 iyo L23 iyo L24 intana hadda weli waxay ku jiraan gudaha Soomaaliya ku jiraan markii lineka loo dhigo qaabkan adjustedka soo marka laymankii saddexdan kow iyo labo saddexdan xabadka isku haya ama bogga isku haya bay ahaayeen blocksyada ama ceelasha sida weyn looga sheekeynayay ama la yiri shidaal ballaaran baa ku jira weliba I think inay labadan block inay yihiin L21 iyo L23 laakiin ma garanayo midka uu shidaal badan ku jiro laakiin sida la sheegay baan idin sheegaya soo marka dhankaas markii la fiiriyo qaabka hadda wax loo dhigay haddii 16 mileka lagu dar lahayo haddii laga jar lahaaba waxba kuma waayeyno arrimaha la xiriira saddexdan block waa sida aan ka arkayo maapkan marka kulley faahfaahin badan dalka ayaa dowladda bixin doonta anagu aragti baynu maalnaa iyo siday nala tahay aragtiyada way qaldanaan kartaa I hope laakiin ay saxan tahay marka waa sidaasi waxaan oran lahaa marka dadka doonaya inay liindhanaanta ku buufiyaan caanaha maanta aynu lisanay ee guusha ah ee qalqalka gelinaya ku haya 12 mile baa gudaha naga galay waana lagu cayaaray adeerayaal dalka loo dabaaldego haddii xataa 80% ama 95% oo ka mid ah wixii la isku hayay aad heshay waxay la mid tahay cayaar aad 5 gool dhalisay oo 1 gool ama 2 gool laga dhibay la mid tahay still waa ugu garanay badii baaxadeedii boqolkiiba maxaa la yiraahdaa waxaynu ku guuleysanay 88% baan helnaa haddii 100% loo fiiriyo markii ama waxaan helnay 84% baan helnaa markii loo fiiriyo so over 80 mar ka badan aan helno waxay la tahay mar walba waa guul guushu macnaheedu ma aha inaad adigu wax walba hesho laakiin guushu waxay tahay inaad muhiimadda cayaarta iyo wixii dhan aad u qaadato soo marka numberkii ugu badnaa guushii anagay 100% markii loo fiiriyo 80 plus anagayna raacday blockskii gudaha ayay ku jiraan nimankaana asxaanka loo sameeyey dabcan waa inaan landlocked laga dhiginin oo aysan noqon dal markii alaab la geenayo dalka lasoo mare space yar la siiyo laakiin arrimaha khayraadka xaggooda in laga fiirinayo ma malaynayo marka waa halkaasi intaas ay soo gaarsiinaya kulley sharxaadda dowladda sugi doonaa laakiin waa aragtiyada yartoo gaaban hadday markayda anfacayso si dadka marka loo badbaadiyo oo beenta iyo niyad jabka looga saaro aduu arta muuqaalka inuu muhiim yahay la sii wadaag walaalaha kale saaxiibadana Soomaaliyeed inta marka idinkaga soo laabanaya waxaan isaga tegnaa sidaa iyo nabadgeno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.